waxaan soo saarnay wasaaradda warfaafinta ahaan wareegto shaqo waan dib ugu qaabeynay habka shaqo ee ay u shaqeeyaan hay'adaha warbaahinta Soomaaliland ay gacanta ku hayso wareegtadaas oo toos ugu socotaan kula hadlaynay waxyaha kala duwan sida radio Hargeysa telefishinka Somaliland National Television waaxda wararka ee Solna iyo wargeyska afka dawladda markii hore loo yaqaanay ku hadlay loo oran jiray Dawan. wareegtadaasi markaa waxay faraysaa in ay wax kasta oo dalka ka dhacay si dhexdhexaad u soo gudbiyaan wararka xisbiyada mucaaradka ee xataa hadday dhaliil yihiin ay dawladda ku dhaliilayaan in sidooda loo soo gudbiyo taa macnaheedu ma waxa weeyaan inaanay hore loo gudbin jirin ma sidaa maaha laakiin dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal dimuqraadi ah sidaa daraadeed marar badan baa waxa hore u jirtay in xogaa xabashooyina ay ka muujiyaan warbaahinta dawladdu gacanta ku hayso inaanay wararka xisbiyada mucaaradka ama inuu dawladda lagu dhaliilayo dadka qaar ay u arki jireen inaan la sii deyn jirin laakiin hore waa loo sii deyn jirin walow aanay badnaynba sidaa daraadeed baan u xaqiijinaynay waanu u shaacinay wareegtada inay hadda laga bilaabo sidaa ula socdaan markaynu ka hadlayno telefishinka qaranka magaca uu leeyahay waxay ka turjumaysaa qaranku wuxuu ka kooban yahay hay'ado badan oo kala duwan oo xisaabta mucaaradka ay kamid yihiin iyo institutiono badan sidaa daraadeed maadaama budgetka iyo adduunka aanu qaranka ugu maamulo hay'adaha warbaahineed laga soo ururiyo dadka reer Somaliland dhammaantood mucaarad iyo maxaafid iyo mid laga yaabo aan aragtidaaba aan qabin xisbiyada lahayn oo dalkiisa ku nool oo jecel waxaanu guddoonsanay inaan u cadeyno ummadayada iyo adduunweynahaba in dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynuhu galwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi in la gorfeeyay sidii loo tayeyn lahaa hay'adaha warbaahineed maxsuulkii ka soo baxayna uu noqday in loo baahan yahay in intaas shakiga ay saanta mucaaradka iyo dad badan ku dhaliilaan in meesha laga saaro marka haddii aad tidhi dhaliilahaasaa jiray walow aanay weynaynba oo aad adigu u qabto iyo wasaarad ahaan inaanay ahayn dhaliilo waaweyn laakiin dadka dhaliisha soo jeedinaya ee u arkaan inay ahayd dhaliil muuqata oo aad ka gaabiseen haatanna aad qiraal tihiin arrinkaas raalligelin inaad ka bixisaan diyaar ma u tihiin oo aad u qirataan shacabka iyo axsaabta mucaaradkaba inaad markii hore ka gaabiseen waajib idin saaraa xilliyada ugu xasaasiyadda badan tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasaddu aad u kacsan tahay waa mararka xilliga loolanka iyo doorashooyinka lagu jiro waxaanu marag u nahay axsaabta mucaaradka iyo dadka Soomaaliland marag ka yihiin in saddexda xisbi qaran ama marka ururada dawladaha hoose lagu tartamayo حتى هير gaarsiisan murashaxiinta u tartamaya golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka aad u fara badan in qof kasta waqti ku filan laga siin jiray warbaahinta dawladdu gacanta ku hayso axsaabta mucaaradkana waxay maragu yihiin oo xataa qaar kamid ah wariyaasha ka howlgala telefishinka iyo radio Hargeysaba attached looga dhigi jiray ololayaashooda iyo soo baxyadooda ay soo tabiyaan marka walaal taasi nidaam waxaan apology ka bixinayna maaha waayo horeba way noo la wadaagi jireen tan xashaqadun baanu ku sii xaqiijinaynaa u damaanad qaadayna in telefishinka iyo warbaahinta dawladda ay kuwoodii yihiin wararkoodana laga baahinayo wariye in loo diro shaqo oo uu meel xisbi ololo ku leeyahay ama uu hawlo ku leeyahay war ka soo qabtaa waa wax fudud laakiin arrintu waxa weeye marka xarunta la keeno wararkaas qaabka loo tafaftirayay iyo sida loo gudbinayay bay dhaliishu ka taagnayd ee ma ahayn inaad wariyayaal soo eega oo wararka ka soo tabiya xarumaha aad u diri jirteen marka haatan qiraal baad tihiin soo maahan mar kale kuugu celiye inay dhaliishaasi jirtay dhaliishu waa jirtay oo dhaliishu waxay ka jirtay xagga axsaabta mucaaradka iyo dad badan baa qabay inaan telefishinka iyo hay'adaha warbaahinta dawladda maamusha aan loo sinnayn tan maanta waxaanu marageeda u soo saaraynaa waxa weeye annagoo leh horeba waan adeegyada waan u qaban jirnay laakiin dhaliisha iyo shakiga jiradaanu meesha kaga saarayn marka waxa weeyaan nuxurka aad haatan jeedinaysaan waa in ay xukuumaddu diyaar u tahay qudheedu inay dhaliisho oo warbaahinteedii dawladdu ay wixii dhaliile ay qabto iyadoo oo aan waxba qarinayn ay toos farta isugu fiiqdo ma arrinkaasa waxaad u cadaynaysaa dadku waxaan ugu talagalay walaal tusaale ahaan haddii ay jiraan dhaliilo ka taagan adeegyada bulshada marka ama axsaab mucaarada ha ka hadasho ama dadka bulshada lafteedu ha ka hadlaan hadday dhacdo in telefishinka iyo warbaahinta dawladduba sida ay tahay u baahiso isla markaana mas-uulkii dawladda hawsha ugu xil saarnaa looga baahan yahay sida ugu dhaqsaha badan inuu jawaab ku habboon oo arrinkaa wax kaga qabanayo adeegyada bulshada ee dayacooda la sheegay uu ku hagaajinayo inuu walaal soo bandhigo isaguna oo qorshaheedii keeno warku sidaa ku dheeli tirmo